Axmed Ismaaciil Samatar waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo uu dalka ku yaryahay noociisa oo kale. Waxa uu barasar ka ahaa jaamacadaha Mareykanka halkaas oo uu ku qaato waxbarashadiisa. Sidoo kale 30 sano u dambeeyay waxa uu diyaarinayay cilmi baaris tiro badan oo la xiriirta Soomaalida iyo sidii ay ku noqon lahaayeen dal nabad ah oo midaysan. Waxa uu isku dayay inuu dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne ka noqdo halkaas oo uu ka helay 8 cod. Tani waxa ay ku kaliftay inuu ku soo noqdo gobollada waqooyi amaba Somaliland oo ah dal isku magacaabay iskii oo doonaya inuu noqdo dal madax bannaan oo ismaamula. Waxa uu ka mid noqday xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo ah mid ka mid ah 3 xisbi ee u tartamaya madaxtinimada Somaliland. Haddaba Axmed Ismaaciil Samatar isagoo adeegsanaya aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa waxa uu la soo baxay hab cusub oo uu ugu ololeynay xisbiga oo uu ka dhaadhicinay xisbigan inuu yahay xisbiga keliyata ee uu qalma inuu dalkan ka taliyo. Isagoo adeegsanaya macallimadiisii waxa uu sameeyay madalo ay isugu yimaadaan dadku taas oo uu ballaminayo goobo waaweyn iyo dhalinyaro ka badan 5,000 iyo in ka badan oo ku soo xiroonaya isagoo u qaybinaya buugta xisbiga ee ay ku qoran tahay qorshaha 5 sano ee soo socda isagoo ka dhaadhicinaya Musabbix Cabdi inuu yahay ninka keliyata ee u qalma inuu madaxweyne noqdo isagoo adeegsanaya balaaqadiisa iyo madalka hadalkiisa lagu yaqaan. Waxa uu ballansaday 12 goobood oo ka mid ah goobaha Somaliland ugu caansan isagoo soo maray dhammaan gobollada Somaliland. Run ahaantii waa hab aad u qurux badan oo ay tahay in lagaga daydo aqoonyahanka. Waa hab ay tahay in lagaga baxo habkan qurunka ah ee ku salaysan qabyaaladda ee uu qof walba inta mikrofoonka qabsado la soo istaagaya halka inagu haddii aanu reer hebel nahay waanu ka digaroonay xisbiga anagu haddii aanu reer hebel nahay xisbiga waa taageersana iyo wax la mid ah. Waa in xisbiyadu ay ku kala duwanaadaan fikir waa in waxa lagu ololeynayaa uu noqdaa fikir Axmed Ismaaciil Samatar. Run ahaantii waa arrin ay tahay in lagaga daydo qodobka aqoonyahanku waynu ka duwanaadaa aqoonyahanada kale ma aha in uu aqoonyahanku la mid noqdo dadka caamada ah iyo bulshada caadiga ah.